munaasabadan oo isugu jirtay xiritaanka tartan aqooneedka dugsiga iyo amaalmarin guddoonsiinta kooxihii kaalmaha hore ka galay tartanka ayaa waxaa saaka lagu qabtay xarunta dugsiga Imaamu Maalik ee Cadaado. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Cadaado iyo kan Galmudug ayaa ka soo qayb galay munaasabada sida ku-xigeenka guddoomiyaha degmada Cadaado Nuur Yarow Xayle iyo Xuseen Cali Saal oo ah guddoomiyaha waxbarashada degmada Cadaado ee Galmudug. tartankan oo ah mid sanadla isla markaana ay qabtaan ardayda fasalka afraad ee dugsiga sare ayaa waxaa sanadkan ka qayb galay in ka badan 20 koox isugu jira wiilal iyo gabdho, waxaana ugu dambeyn tartanka u soo baxay 2 koox oo ah wiilal iyo gabdho. Cilmi Farxaan Maxamed oo ka mid ah ardayda fasalka afraad ee dugsiga sare ahna guddoomiyihii guddiga tartanka ayaa ka warbixinaya heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray tartanku. wuxuu soo bilowday taariikhda markay ahayd taariikhda miilaadiga markay ahayd 9 bishii 10aad, taariikhda hijriguna ay ku beegneed 10 bisha 2 1441. wareegii koowaad ee tartanka wuxuu ku bilowday 22 kooxood, 8 kooxood oo gabdho ah iyo 14 kooxood oo wiilal ah. 8 kooxood ee gabdhaha ah laba kooxood ay isugu dhaceen ama ay u tartameen, sidoo kale 14 wiilna ayagana sidoo kale laba koox ay u tartameen. wareegii labaad ee tartanka waxa uu soo gudbay 11 kooxood, 4 kooxood oo wiilal oo gabdho ah iyo 7 kooxood oo wiilal ah. 2 koox wareegii saddexaad waxa uu soo gudbay 2 kooxood oo gabdho ah iyo 4 kooxood oo wiilal ah. wareegii afraad ee tartanka ugu dambeeyana waxa uu soo gudbay 1 koox oo gabdho ah iyo 1 koox oo wiilal ah. ayaga ayaana ku tartamay tartanka wareegii afraad. ayaga ayaana isku dhacay ama ku tartamay wareegii afraad ee tartanka. ayaga ayaana kala galay kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad. guddoomiyaha waxbarashada degmada Cadaado Xuseen Cali Saal oo munaasabada ka qayb galay ayaa dhankiisa bogaadiyay ardayda kaalmaha hore ka galay tartankan, isagoona sidoo kale ardayda dugsiga ugu baaqay inay joogteeyaan maadaama uu tartanku yahay lafdhabarka waxbarashada. sidoo kale waxaan rabaa inaan ardayda guud ahaan in ay barnaamijyada waxbarashada ay ku jiraan iyo juhdigooda ay laabaan inaan ku dhiirigelino, gaar ahaan labada fasal ee shahaadiga ah, gaar ahaan fasalka form 4 iyo fasalka 8aadka. runtii waxaan rabaa si toos ah inaan kugu sheego inaad tihiin dad degmada Cadaado ay ku xisaabtamayso. in aad isku xisaabtanto waxa ka sii weyn in mujtamaca dhan kugu xisaabtamayo oo la leeyahay ardayda 8aadka iyo ardayda form 4 iskuulka Maalik sanadkan xagee galeen, degmadii maxay u soo hooyeen, Galmudug maxay u tabceen. dhankiisa Xasan Maxamed Geedi maamulka dugsiga Imaamu Maalik qaybtiisa Cadaado ayaa sheegay in qarashka ku baxay tartankan uu baxshay dugsiga isagoo aanan jirin cid kale oo ka gacan siisay. xafladan waxaa qarashkeeda bixiyay oo isku soo dubariday iskuulka Imaamu Maalik qaas ahaan qaybta Cadaado. qolo kale lama aysa kaashan, ayaga ayaa jeebkooda ka bixiyay. waxaan u mahad celinayaa ugu dambaystii anoo raba inaan soo koobo fasalka form 4 oo ah runtii xafladan aad aragteen quruxda badan, hadday ahaa lahayd qalabka ubaxa, hadday ahaa lahayd nadaafadda iskuulka ka muuqata, hadday ahaa lahayd sida quruxda badan ee loo fadhiyo, hadday ahaa lahayd sida kuraasta u dhigeen, hadday ahaa lahayd nidaamka loo fadhiyo, nidaamka loo wanaajiyay iyo xafladda quruxda ka muuqata. runtii intaas waxaa mahaddeeda iska leh ilaahay allahina abuurtay ka sokow fasalka form 4. ugu dambeyn Nuur Yarow Xayle guddoomiye ku-xigeenka degmada Cadaado isna madasha ka hadlay ayaa bogaadin iyo dhiirigelin u jeediyay guud ahaan ardayda dugsiga, gaar ahaanna kooxihii tartanka sanadkan ku guulaystay, waxaana amaalmarintooda guddoonsiiyey ardayda guulaysatay. maanta oo aad aan u yaabanayo sanadkii afraad ay maanta gabdhaha ku guulaysanayaan oo birma ay galeen, aadaan ugu mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad. waxay naga reebi doontaa oo adinkuna aad rabtiin laftiinnu inaad jawaab cad ka bixdiin. wax badan ah Soomaaliya waxa la yiraahdaa gabdhihii qoondadoodii aawe ayadoo marka baryalaana aqoontiinii haddaad wax ku keensanaydiin
ayadana inaad bulshada kale oo idinka maqan ay tilmaan idinka hesho oo cidna aan idinka xigin inaad ama wax maamushiin ama aad mataqaanaa guulaysatiin cidna aysan ka xigin baryana aydan cidna u ahayn inaad garansiideen ummadda kalena waa idinka rabaa ayay saxan soco abaalmarin waxaad u hesheen kaalinta koowaad aad gasheen $100 oo mataqaanaa hambalyaha la idin siiyey waa xusid ma ahayn mataqaanaa xoolo laakiin waxay u baahan tahay in la xuso qofta guulaysatay oo abaalmarinta koowaad la siiyo qabo haya tartan aqooneedkan oo ay ujeeddadiisu tahay ka warqabidda iyo ku korjoogtaynta waxyaabaha ay ardadu baranayaan ayaa ah mid sanadlaa waxaanuu sanadkan ahaa kiisii 10aad isagoo soo bilowday sanadkii 2010 si sare loogu qaado tayada waxbarasho ee dugsiga. cabdirashiid cali maxamed muuqaal baahiyaha STN cadaado.